عاطينا فرتني سدحات يكون سوري وغرب بيك واشوف ليس صوماليا من qaybta afartan ee saddexaad guutada degan magaalada Kismaayo ama Jubbada Hoose iyo ciidankii danab ee soo deegaanka ka hawlgeli jiray oo saraakiishoodii aad arkaysaan war badan kuma darayo taliyaha warka uu ka hadlayay waa sida uu sheegay intan hadda waa intii da'da u badnayd ciidanka badi laga bilaabo bulo guduud iyo ilaa iyo sanguuni isdaba yaala dhibaatada jirtana waxa weeye mudane ra'iisul wasaare siyaasaddu amniga ma gasho ciidankuna siyaasad ma galaan cabashada iyo tabashada waxaan u malaynayaa 5 taliye xooga dalka Soomaaliyeed baan anigu recommendation uga galay iyo madaxweyneyaalba inay dalacaad ay leeyihiin iyo xuquuqda ay leeyihiin ay helaan waxaa la yiri qaarkood dablayaal baatiin saraakiishan hadda waa intii qamaamiirta ahayd ee duqowday 30 sano gaashaan la saraha buu leeyahay waragii ilaa xuduudka nagala soo bilaabay dagaalka ee markii dambe kamaanga ku xarooday kulli saraakiishan waa saraakiishii hore garaadahana waa ku wadatay seerjito gacanteedu dalacaada halkana way ka yara xirxiran tahay lama qorto waana runtii rasaastii iyo riboodkan oo dhan waan ku siiyay saakan golaha wasiirada horteeda kaasi xalay baan ku sheegay ciidankan moralkiisa aan la jabin amiso ma raacdo mar lama daba gasho meesha ABCyada faraha badan tuulooyinka iyo qabaylada dhexdooda la isku leynayo baawurta qamaamirka halka farfadhida iyo cabdibilayaashan iska fadhiistay iyo intan danabo ya maanta wax gaadiid meesha yaal 16 baawur baan baawurta cabdibilayaasha loo keenay weligoodba maxaa maanta ka fiyo 16 kaas hal baawur oo ka dambeeyana lama keenin hal baawur oo ka horeeyana lama keenin duruufta ka hadlayaan waa wax dhaba dalacaad ma jirto oo ogaansho ma jirto oo qaar badan oo kamid ah hadda xuquuqdii mushaharka xataa way ka maqanta waxaan rajaynayaa inaad ribood dhaba kala tagi doonto iyadoo wasiiradaadina ay goobjoog ka yihiin mudane ra'iisul wasaare waa dhalinyaro Soomaaliyeed maalin walba dhaawacooda iyo dhimashadooda taagan haddii ay kii dhintayna wax xuquuq loo waayo kii dhaawac ahaana wax dhaye la waayo kii hawlgalayna uu gaadiid waayo maalin walbana ay arkaan Turkiga wuxuu keenay ABCyo qadar baa keentay Talyaaniga keenay habarkuulay baa la siiyay heelay ka baxday moralka ciidanku intee leeg hoos u dhacay hal la ilaaliyo ciidanka iyo wiilasha iyo gabdhahaas moralkooda waxaan dawlad ku nahay waa iyaga amisoomna dawlad kuma nihin ciidan kale oo nacaawiyana dawlad kuma nihin generaalku wuxuu yiri mariina away hal oday oo duqooyo ka jooga waxba looma keenin gaadiid ma haysto weydii hadda shaar cad oo kale adiga kan la yimid Soomaa waxay u baahan tahay dawladnimadu mudane ra'iisul wasaare cadaaladda kama soo hadho ha helaan xuquuqda ay leeyihiin ciidamadu ha helaan kuwa qadar iyo Turkiga iyo Talyaaniga ay keenaan ha helaan waxa xooga dalka loo keenay loo qaybiyo waa dad Soomaaliyeed tababartay xuquuq leh intaas soo halgamay garaadana waa tan ku sheegay gaashaan la ku wareejinay kabtan baan ku wareejinay la wax digla leeyahay inta in la waa habeen walba way socdaan kuwa maana waxa la saddex alflayaar yaa la idin seenaya ciidanka markaa wareejinayna ciidanka ugu xulsan bay ahaayeen ama nabadsugiida ha noqdeen ama daraawiishta ha noqdeen ee Jubbaland kuwana iyagoo inta leeg baan inta u badan soo wareejinay oo ragii waliba soo hawlgalay ah ra'iisul wasaare anoo og
niyad wanaagaaga iyo inaadan waxba hakranaynin iyo culayska ciidanka aad u dareemayso waxaan leeyahay ku soo dhow